maanta waxaynu booqan doonaa mid ka mid ah xidigyada Bollywoodka. waxaa laga yaabaa inta badan inaad ku daawan jirtay filimada iyo isagii suuqa maraya, laakiin kani waa Hrithik Roshan, waxaana uu dhex fadhiyaa mid ka mid ah qolkiisa ama gurigiisa. halkani waa qolka nasashada ee gurigiisa. Hrithik Roshan waxaynu la cabi doonaa koob shaaha, ka bacdina waxaynu weydiin doonaa su'aalo fara badan oo laga yaabo inaad u baahnaydeen in la weydiiyo. Hrithik Roshan su'aasha ugu horeysa ee aynu weydiin doonaa waxay tahay: maadaama aad tahay nin weyn da ahaan, maxaa kalifay in dhalinyartaad weli u yartahay oo aad yartahay oo da'daada aan waxba iska bedelin? waayo mar walbaaba oo aad filim matalaysid waxaa la moodaa inaad ka sii yartahay filimkii aad maalintii hore samaysay ama aad matashay. Hrithik Roshan waxa uu yidhi, markaanu Bollywoodka ku dhex jirno waxaa khasaba inaanu ilaalino jirkayaga, waxaana mar walba aanu ka shaqaynaa sidii aan u yaraan lahayn ama aan u dhuuban lahayn. taas ayaa ii saamaxday aniga inaan la ekaan waayo da'dayda ama aan ka muuqaal yarahay rag fara badan oo dhowaan filimada soo galay oo weliba da'doodu ay tahay 22 haddaan 20 ba ahayn. Hrithik Roshan waxa uu yidhi, markaad filimada matalaysid oo aad tahay qof u bareeray inaad ka soo dhex muuqatid shaashadda oo aad qaabilaysid filim weyn, waa inaad tahay qof ay ka muuqato jirkiisa hadda wixii loogu talagalay nin matali karaya. waxaana uu yidhi, marka filim lagu dhiibo waa inaad tahay qofkii loogu talagalay ama qofkii loogu talagalay waxa aynu sameeyo. waxa uu yidhi, dad badan ayaa jira oo aan ku soo baxayn qaabka matalaadda, dad badan oo ku soo baxaana waa ay jiraan oo ku qurux badan hadda wixii loo dhiibo. marka wuxuu yidhi, waa inaad leedahay dabeecado isbedeli kara oo hadda wixii lagu dhiibo ka samayn karaya sheekadii loogu talagalay inaad barteeda dhigtid. Hrithik Roshan waxa uu ka warramay dhinaca labiska, waxaana uu yidhi, qofku marka uu yahay qof caan ah ama actor dunida oo dhan laga yaqaano waa inuu yaqaano waxa uu gashanayo iyo waxa uu markaa ku labisanayo. waxa uu yidhi, waxaad ku labisanaysaa waxay tusaale u tahay qofka aad tahay. waxaana uu yidhi, meel walba oo aad tegaysid waa inaad taqaanaa qaabka aad u labisanaysid iyo waxaad u xidhanaysid. waxa uu yidhi, qof walbaaba oo raba inuu actor noqdo ama inuu caan dunida ka noqdo waxa uu markaa ku caan noqday waa inuu yaqaanaa dharkeeda. waxaana uu yidhi, annaga shirkado waaweyn ayaa inta badan xayeysiis nagu sameeya. waxaana uu yidhi, haddii mar walbaaba aad hoos u dhacdid ama labiskaagu uu fool xumaado waxaa macquula inaanay cidna wax kuu dhiiban ama aanay kugu soo darsan shirkadahooda inaad u xayeysiiso. laakiin waxa uu yidhi, markaad tahay actor ama qof caan ah adiga ayaa ah qof soconaya. markaa socodkaaga, labiskaaga iyo qaabkaad tahay waxay tusaale ka dhigaysaa in shirkado fara badan aad soo jiidatid oo inta ay ka badato dadka kugu xidhan ama macaamiisha shirkadaha waaweyn ee caalamka.